السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن وناكسن وشن يلباتنك بش ديسمبر 2016 waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa barnaamij gaar ah oo ka hadlaya sanadiyadii ugu dambeeyay shilalkii diyaaradeed ee ka dhacay. barnaamijkeenan gaarka waxaan ku soo qaadan doonaa shilalkii ugu darnaa ee dhacay 3 sano ee ugu dambeeyay inagoo ka soo qaadan doona inta ugu muhiimsan. ديارة كعيسى جدا وديارة ناسو وان كبعضي بدأ مدو ودن كاسي راشكا سيدا وجدان بديارة دواد مركي ودن بيسي كعيسي برونكا مقالة سوج دالكاسي راشكا markay diyaaradda ka ceysana cimilada aad ayay u xumeed. God. You can see the plane on the camera too. Oh! Boy, you got some ball. Look at that guy. What are you doing? waxaa barnaamijkeena gaarka ah ku bilaabeynaa diyaaradda Tu-154 ee laga lahaa wadanka Russia taasoo lahaayeen ciidamada militariga wadankaasi Russia ee ku burburtay badda madow ee u dhow magaalo xeebeedka Sokia ee wadanka Russia. diyaaradda Tu-154 waxay ka soo kacday garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Sokia ee wadankaasi Ruushka waxayna ku dul burburtay badda madow ee wadankaasi Russia 25 December 2016. diyaaradda waxaa saarnaa 92 ruux oo rakaabka iyo shaqaalihii diyaaraddaasi isugu jiray. gabi ahaanna waxay naftooda ku waayeen shilkaasi diyaaradeed. diyaaradda Tu-154 waxaa saarnaa 9 wariyaal ah iyo koox si qaas ah baanbayda ugu tubtay ciidamada militariga wadankaasi Ruushka waxayna gabi ahaanba naftooda ku waayeen shilkaasi diyaaradeed. 7 December 2016 diyaaradda Pakistan International Airlines Flight 661 ama BAI 661 ayaa ku burburtay gudaha wadanka Pakistan iyadoo sameeysay duulimaad gudaha waxaana ku dhintay dhammaan rakaabkii diyaaraddaas oo gaaraya 42 qof iyo 5 kamid ah howlwadeenadii diyaaraddaasi. 28 November 2016 Lamia Airlines Flight 2933 diyaaradda lagu magacaabo oo suuminaysay duulimaad iskaga kala gooshaya Zerocorde iyo magaalada Medellin wadanka Colombia ayaa ku burburtay gudaha wadankaasi Colombia waxaana saarnaa diyaaraddaas u kireysnay koox kubadda cagta oo ka dhisan wadanka Brazil oo lagu magacaabo Chapecoense taasi oo ay ku dhinteen diyaaraddaasi 71 qof iyadoo ay saarnaayeen 77 ruux. kooxda kubadda cagta ee Chapecoense ayaa wadankaasi Colombia ku soo ciyaari lahayd lugta ugu horeysa koobka ama finaalka koobka lagu magacaabo South America ee laga ciyaaro qaaradda Latin America. sidoo kale 19 May 2016 Air Egypt Flight 804 ayaa ku burburtay bariga badda Mediterranean Sea iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 56 kamid ah rakaab
rakaabkii diyaaradaasi iyo 10 kamid ah howlwadeenadii diyaaradda Egypt Air Flight taasi oo duulimaadkeedu ahaa magaalada Paris ee wadanka Faransiiska ilaa magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar. 29 Abriil 2016 diyaarad helicopter oo lagu magacaabo Turayo ayaa ku burburtay gudaha wadankaasi Norway waxaana ku dhintay dhammaan 13 qof oo saarnaa iyo duuliyihii helicopterkaasi. 2 Febraayo 2016 diyaaradda Dala Airline Flight 150 ayaa ka duushay garoonka Aadan Cadde balse daqiiqado kadib waxay dib ugu soo laabatay diyaaraddaasi iyadoo qarax ka dhex dhacay ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kamid ah rakaabkii diyaaraddaasi. 2015 shilalkii diyaaradeed ee dhacay 4 Febraayo 2015 diyaarad lagu magacaabo Trans Asia Airways Flight 235 ayaa ku burburtay webiga lagu magacaabo Kilongi ee wadankaasi Thailand iyadoo ay ku dhinteen 58 ruux oo saarnaa diyaaraddaasi. sidoo kale 2014 shilalkii ugu xumaayay diyaaradeed ee dhacay 28 December 2014 diyaarad lagu magacaabo Indonesia Air Asia Flight 8501 oo iskaga kala gooyshaysay wadanka Indonesia iyo Singapore ayaa burburtay waxaana ku dhintay dhammaan rakaabkii oo gaaraya 155 qof waxaana kaloo ku dhintay 7 qof oo kamid ah howlwadeenadii diyaaraddaasi. 24 July 2014 diyaaradda Air Algeria Flight 5017 ayaa burburtay iyadoo iskaga kala gooshaysay wadanka Burkina Faso iyo wadanka Algeria waxayna ku burburtay waqooyiga wadanka Mali. 17 July 2014 diyaarad lagu magacaabay Malaysia Airlines Flight 17 oo ahayd nooceeda Boeing 77 iskaga kala gooshaysay magaalada Amsterdam ee dalka Holland kuna socotay wadanka Malaysia caasimadiisa Kuala Lumpur ayaa ku soo dhacday bariga wadanka Ukraine waxaana ku dhintay 283 ruux iyo 15 qof oo kamid ahaa shaqaalihii diyaaraddaasi. 16 Febraayo 2014 diyaarad lagu magacaabay Nepal Airlines Flight 183 ayaa burburtay waxaana ku dhintay 18 ruux. shilalkii dhacay 2014 ilaa 2016 barnaamijka qaaska aan ka sameynay halkaas ayuu ku idil yahay waxaana xusid mudan in aan ka soo xulanay dhacdooyin gaar ah balse 2014 ilaa sanadkan sii dhamaanaya 16 waxaa dhacay shilal aad u fara badan kuwaasoo ay rakaabkii diyaaradaha ay ka soo gaareen dhimasho iyo dhaawac. nabadgelyo.